door wanaagsan akhyaartan hawada ku saaxiibnaya oo meel kasta dunida ka joogtaan waa markale iyo barnaamijkeena saadaasha ama saadaalinta shaxda one expert maanta waxaa miiskeenu saaran afartan kooxood balse marka hore hadday tahay daawashada kugu horeysay channelka subscribe inuu saar like share comment oo asxaabada u gaaro khiyaarta kalena waxaan ayagana ka rabnaa in khiyaarta si toos noogu xiran inuu share gareeyaan soo asxaabada u gaaro inta soo kumaasantay inta kadib maanta ebil 6 kooxood ayaan miiska soo saari jirnay balse maanta 4 kooxood ayaan soo saareynaa maadaama aysan jirin ciyaaro badan oo horyaalka caalamka laga horyaalada weyn caalamka laga ciyaarayo marka 4 kooxood ayaan soo koobnay maanta 4 kooxoodna waxaa ugu horeeya LGE Malora oo maanta wada ciyaari doona saacadu markay tahay 10 habeenimo caawa ama 4 saac habeenimo caawa marka LGE Malora cidna dhihmeeno way badinaysaa balse labada dhinac laba gool oo kaliya ayaan ka rabnaa Spanish La Liga marka guudaan ciyaartan waxaan ku soo xulnay in laba gool ay ka imaan karto tan kaleeto labadan kooxood kale oo France League 2 ka wada ciyaara Azi Santa iyo kooxdan kaleetona sidoo kale ayadana waxaan u soo xuleynaa inay kaliya laba gool ay ka imaan karto guud ahaan ciyaarta waxa kale soo saddexay Eibar iyo Mirandes waxaan qoran tahay oo Spanish maxaa ku yiraahdaa division ka ciyaara ayagana sidoo kale to labadan kooxood waxaan leenahay waxaan u soo xulnay in Eibar oo total 1 ah kaligeed ay dhali karto hal gool marka ciyaartan iga qorcaa waxa badi doonta Eibar laakiin wax walba ayaa dhici kara laakiin Eibar kaliya waxaan leenahay hal gool ayay dhalinaysaa waxa ugu dambeeya San Dines iyo Grun kooxdan ka qoran tahay oo Norway iidan ka ciyaarto macnaha horyaalada Norway qayb kamid ah ka ciyaarto marka guudaan tani way badinaysaa waan rajaynaynaa inay badiso badinaysaa ayaa leenahay marka maanta 4 kooxood oo kaliya ayaan ka soo xulnay fadlan video daawo si aad u fahanto shaxda iyo waxyaabahan isticmaalnay haddii si ku qancin si aad u bedelato ama wax ugu bedesho marka aad baad u maasantii saaxiibayaal 4 kooxood ayaa maanta idin soo xulnay gool ayaan idin rajaynaynaa dhamaantiin